dooday haddii Soomaalidu heshiiso oo ilaa xad ku heshiiso iyada siyaasadda ka heshiiso xabadda iyada dhexdeedana ay joogsato waxa yaraanaya sababta qof kale ama dawlad kale ama hay'ad kale ay dan uga dhex aragto dhibaato uga dhex sameeyso sababta dad iyaga heshiisa suurtagal ma aha in dhibaato lagu sameeyo laakiin dad iyaga iskhilaafsan waxa u fudud in dab la sii dhex dhigo marka halkaas ayaa shirkadda heshiisiinta runtii ee Djibouti aan tagnay waxaan runtii ku faraxsanahay halka inuu fadhiyo xildhibaanka walaalkay Daryeel oo kamid ah qaybta dhinaca kale fadhiyay shirkadda heshiisiinta ee guddiga dhinaca kale fadhiyay oo maanta ka marqaati fur kara waxaan halkaas ugu nimid waxay ahayd barnaamij furan oo ah walaalayaal iyadoo wax shuruud lahayn iyadoo wax conditions saarayn aan anay adinku wada hadalno hadaa dadkii mucaaradka tihiin iyo hadaa anagu dawladeenahay aan wada hadalno oo aan wada fariisano oo aan ka wada hadalno xaaladan adag ee dalkeena ku sugan yahay sideen uga gudubnaa labo waxaan runtii ka codsanay dawladda Djibouti inay gogosho noo dhigto sababtoo waxaan arkaynay meesha kaliya ee labada dhinacba ay ku qanci karaan inay tahay oo shirkaas meelo badan oo ka dhici kara adduunka waad ogtihiin laakiin annaguna hadda Eritrea ma naantii karin iyaguna malaha aad sabab noogu imaan karin xamarna la isugu imaan karin meel kale ma naantii karin marka waxay noola muuqatay inaan dawladda Djibouti ka codsano oo niraahno naga caawiyo gogolna noo dhigtaan hore noogu dhigteen gogol mid kale noo dhiga Ismaaciil madaxweynaha Ismaaciil Margeele anaa ka codsanay waxaan aad rabaa inaan halkan dadka walaalay halkan runtii ka gudbiyo dad badan baa markii xaaladu adkaadaan waxay aad u sheegaan oo yiraahdaan dawladda Djibouti adan kala hayd iyo iyaga markii hore waxaan sameeyay iyo xooga runtii waxa way codsi aan geysano waxa weyna naga yeeleen waliba wuxuu madaxweynuhu runtii yaani noogu daray inay diyaar u yihiin ilaa aan ka heshiino inay gogoshaas noo fidinayaan oo aan isugu tagno wayna shaqaysay oo waxay fursad noo siisay labadii dhinacba inay si sahlan Djibouti u yimaadaan waliba waxaan rabaa inaan halkan ka warbixinta ku daro in marar badan oo xaaladuhu nagu adkaayeen duruufaha dooda nagu adkayd in runtii dawladda Djibouti iyadu ka shaqaysay inaan isfahmno waxaan aad u xasuustaa maalin waa Daryeel inuu og yahay qodob uu heshiiskan isku qabanay muddo dheer aan ku wada hadlaynay saacado badan markaan doodaynay madaxweynaha Ismaaciil Margeele hotelka noogu yimid soo weynay annaga aniga prime minister ka Nuur Cadde meelan ku jirno noogu yimid waa wada hadalnay wuxuu tagay madaxweynaha hadda Sheekh Shariif iyo Shariif Xasan oo iyaguna meel kala jooga oo la hadlayay teamkii labadii team waa u tagay runtii waxyaalo badan oo istusaaleyn leh oo aragti leh oo ka ballaaran waxaan markaa isku haynay ayaa markaan la tusaaleynay Djibouti markii guri aan leenahay walaaleed ayuu ahaa mar walbana ka shaqeynay inaan ku guuleysano in heshiis ku dhaco oo anagu aan ku guuleyso aniga marar badan dadku waxay yiraahdaan waxaan xagga Mareykanka soo qoray waxaan rabaa waxa warqadaha ku qoran waxaanaga aan qorano waa waliba aan saacado badan isku qabsanay habeenna ku dhafaray waqti badan aan ku doodnay waxaasna waxa marar badan caawinay markii yani beesha caalamka la joogto ka soo dawladda Djibouti qayb weyn ay ka ahayd iyo Soomaalidii dalka joogtay oo noo wada timid marka waxaan halka uga jira macnaheedu hatta heshiisku ma sahlaneyn oo heshiisku ma ahayn wax yani hal maalin ku yimid muddo dheer yani ayaan isku haysanoo ka wada hadlaynay waxyaalaha marka aan ka wada hadlaynayna waxay ahayd aragtiyada hadda laftigeeda runtii culaysyada keenay oo ah of course waa arkaynay in dawladda Itoobiya joogitaankeedu uu dhibaato dalka ku ah laakiin haddana dhinaca kale waxaan dareemaynay inay jiraan dad kale oo Soomaaliyeed oo kulay iyaguna dhibaato dalkii ku ah haddana miiska aan la joogin saan xal ugu helaynaa maxaa garanti gareynaa waxa aan ku heshiino inay fulaan horta heshiiskaas aniga waxaan runtii isleeyahay hadalka waxaan u leeyahay haddii hadda leeyahay heshiis kale ha lagu noqdo macnaheedu waxaan hubin inuu kii hadda joogo ka fiicnaan doono argumentiga waxaan u wadaa midka hadda jooga oo runtii furaa oo aha qof walba Soomaaliyeed gaar ahaan dadkii marka mucaarad dawladda ku ahaa inay ka soo qayb gasho haddaan iraan heshiis kale aan ku noqono aniga ma hubo inuu kii hore ka fiicnaan doono sababtoo kii hore taageero buuxda oo caalamka uu haystay dawladda Djibouti oo runtii uu shaqo badan gelisay uu haystay annaga Soomaalidu duruuftu nagu adkeyd oo runtii isku dayeynay inaan wuxuun xalinana waa isla fadhinay marka haddii wax naga xumaadeen aan raadino meelaha kale wax ka xun yihiin xagee problem ka jira waxaan rabaa inaan 2-3 qodob aan idin xasuusiyo oo
aan isleeyahay ciladaha meelaha ka yimaadeen waa ka mid midda koowaad heshiiska markaanu galaynay Djibouti ku galaynay 9kii bisha ayaan heshiinay siixnay qodobkii ugu koowaad aan shal gareynay waxaan ku qoray adiga 9 qodob 11 qodob 13 qodob bay ahayn laakiin waxa muhiimka waxay dhowr qodob asaasi ah ku jiray dhowrkaas qodob sidii la rabo wada fulin horta markoo runtii uma wada fulin waxaan rabaa in badankii waa aragteen heshiiska waxaan rabaa inaan aad u xasuusiyo walaaladii halkan jooga qodobada aan islahaa runtii muhiim ay u ahaayeen mid wuxuu ahaa annaga Soomaali hadaan inaan heshiino oo siyaasadda ka heshiino oo aan siyaasiga yani khilaafka Soomaalidu waa siyaasi horta siyaasadda aan ka heshiino arrintaas ilaa xad waa lagu guuleystay oo waa dhacday inaan wada hadalnay oo heshiis ka galnay laakiin waxaa jira dhowr qodob oo kale oo sal u ahaa in heshiisku fulo mid waxay ahayd in 120 maalmood gudahood muddada aan ka shaqaynayno in ciidamada Itoobiya dalka ka baxaan isla markaas lagu keeno dalka ciidamo UN baad heshiiska annaga kaliya ma nasiixin UN waa nala siixay dawladaha Mareykanka Europeanka African Unionka Arab League kulli waa nala siixan marka waa commitment aan wada galnay ana waxaan isleeyahay tii Soomaalidu waa fushay laakiin duruufo kale oo jira ayaa jira oo wixii la rabay aan aysan dhicin sidii la rabay aysan u dhicin waxa kamid ah sida yani runtii Soomaali mid ku qoran baa jira laakiin mid Ingiriis aan soo helay in maaragtay within 120 days to authorize and deploy an international stabilization force from countries that are friends of Somalia excluding neighboring states ujeedadu waxay ahayd waxaan dareensanayn in Soomaalida heshiiskeeda kaliya uusan ku filayn barnaamijka in nabad lagu helo in markaas aan u baahanahay in la abuuro jawi nabadeed oo markaa shaqadii lagu qaban karo arrin labaad oo iyaduna muhiim ahayd inta fushay ciidamadu inay baxaan way fushay in anagu aan heshiinana way fushay labada qodob laakiin aan isleeyahay ma fulin labadaba dhinaca beesha caalamka kama fulin mid waxa waa mid ah in ciidamadaas UN ka la keeno runtii dadaal badan ayaa jiray annaga waxaan isleenahay dawladda Mareykanku gacan badan ay ka geystay in ciidamada la keeno markii ugu dambeysay waqti inkastoo administrationkii markaas joogo waqti dambe uu go'aankaas qaatay Security Council-ka markii aan December nimid wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanku waqtigaas Condoleezza Rice waxay aad uga shaqeysay maalintaas in la authorize gareeyo in ciidamada la keeno heshiiskan la fuliyo arrintaas xoogaa culeysa ka yimid badanka dadkii miiska fadhiyana kama iimaan dawladdan hadda cusub oo markaas iyadoo aan la wareegin Obama ayaa shaki ka muujiso tiri ma naqaano waxa aan gacanta u galino nolol saxay hal la sugo ilaa anagu aan nimaadno laftigan arrintaas waxaan rabaa inaan Soomaalida halkan joogta gaar ahaan dadka maaragtay aadka ula xiriira dawladda Mareykanka inay fursad u tahay ay ka faa'iideysan karaan oo ay tahay lobbying qayb ay ka tahay in la yiraahdo heshiiskii shalay aan wada galnay adinkana administrationkii hore u galay in la dhameystiro dawladdan waa looga baahan yahay arrintaas waxa lagu bedelay in 6 bilood arrinta AMISOM la sii xoojiyo arrin labaad oo iyaduna waxa jirtay aan runtii sidii la rabo wax uga hirgelin inkastoo duruufo ay jiraan keeni kara arrintaasna waxay ahayd in labada dhinac ay heshiinaya aysan ku filayn kaliya inaan inta dalkii tagno dawlad dhisano laakiin in dadku dhaqaale u baahan yahay marka in beesha caalamku ay samayso 6 bilood gudahood sida ay u qoran tahay waxay ahayd the parties call on the international community to help provide adequate resources for the implementation and follow up of this agreement heshiiskan in hirgelintiisa gacan laga geysto waxa halkaas ku qoran labada dhinac waxay muhiim u arkaan in la isugu yimaado oo beesha caalamku isugu timaado shir 6 bilood gudahood loogu aruurinayo deeq dhaqaale Soomaaliya si deeqdaas macnaheedu ma ahayn dhinaca ciidamada waxay ahayd dhismaha dalka sababtoo waad garan kartaan hadda iskaga sheekeen meeno dhibaatada ugu badan ee dalka ka jirta waxa way dhalinyaro aan iskool haysan shaqo haysan ee aan haysan maaragtay maxay maanta qorigu waa shaqo laftigiisu hadda wax socda saad ogtiinba qoriga shaqo maanta marka dhalinyaradaas in loo abuuro fursad kale oo dadka nolol loo helo oo dadku ay helaan intooda badani barorta fursad kale arrintaas waxay ahayd mas'uuliyad ay qaadeen beesha caalamku markii wax nala seexan arrintaasna sidii la rabo uma dhicin runtii iyada laftigeeda dadaalka wuu bilowday Sweden waxaan ku qabanay shir ay dawladaha caalamku ka soo qayb galeen oo preparatory conference ahaa oo runtii ujeedadiisu ahayd si shirkan loo hirgeliyo ay isugu wada yimaadeen in lacag lagu wada qoray dawladaha caalamka oo dhan oo qolo walba